saaxiibayaal kulan wacan oo wanaagsan waxaan ku rajaynayaa inaad caafimaad qabto maanta muuqaalkeenu wuxuu ku saabsan yahay 5 arrimood oo xoojiya awoodda raganimada waxaa jira waxyaabo badan oo lagu xoojiyo awoodda raganimada kuwaas oo qof walba uu u baahan yahay hormoonka ugu weyn ee awoodda raganimada oo afka qalaad lagu dhaho testosterone waxa uu leeyahay daryeel si gaar ah loo sameeyo haddaba waxaan muuqaalkan ku dhageysan doonaa ama ku daawan doonaa ama ku ogaan doonaa talaabooyin dhowr ah oo haddii aad qaado wax badan aad iskaga bedelayo balse marka hore intaanan muuqaalkeena gudaha u galin fadlan hadduu muuqaalkan ku soo gaaro noo share garay like-tana noo saar haddii aad cusub tahayna soo dhawow oo subscribe-ta noo saar aad baad u mahadsan tahay kow iftiinka qoraxda ama vitamin D-ga ku dadaal inaad maalin walba hesho iftiin toos ugu imaada qoraxda oo jirkaaga ku dhaca haddii aadan helin ama haddii aadan heli karin wayn waxaad bedel ahaan u adeegsan kartaa vitamin D-ga muddooyinkii dambe vitamin D-ga wuxuu noqday mid ka mid ah fitamiinada ugu caansan caalamka oo dhan kadib markii si fiican loo fahmay faa'iidadiisa cajiibka ah qodobka labaad hurdo fiican inaad hesho nasiinada waa mid ka mid ah arrimaha ugu muhiimsan ee raganimada xoojiyo sida ugu habboon ee uu nasiino lagu helana waa inaad waqti fiican seexataa habeenkii xilli hore seexo maalintiina isku day inaad ugu yaraan hal mar indho gaduudsato micnaha aad seexato faa'iidada ama khasaaraha hurdada waxay inta badan ku xiran tahay qofka iyo dadaalada kale ee uu sameynayo laakiin daraasad waqti dheer la sameynayay ayaa muujisay in ragga habeenkii seexda 5 saacadood oo kaliya ay awood raganimadooda hoos u dhacdo 15%. sidaas darteed xaqiiji inaad seexato wax aan ka yareen 8 saacadood habeen kastaba. 3. Jimicsiga wuxuu saldhig u yahay ka hortagga cudurro badan oo qofka soo wajaha. Howlaha kale ee uu ka caawiyo nimanka waxaa ka mid ah kobcinta awoodda raganimada. waxaa kale oo xitaa kordhiyaa cabirka murqaha. sidoo kale jimicsigu wuxuu qayb muhiim ah ka ciyaaraa isu socodka unugyada jirka. 4. Borotiinka iyo baruurta waxyaabaha aad cunaysid waxay kaalin ka qaataan kobaca ama hoos u dhaca raganimada. cuntooyinka xoojiya hormoonada dhinaca galmada ee ragga waxaa ka mid ah raashinka borotiinka badan sida hilibka, baruurta iyo kuwa sokorta ku badan tahay. marka aad la kaashato jimicsiga waad ka hortagi kartaa cayilka ay keeni karaan cunooyinka fara badan. 5. Yareynta walwalka daraasado badan ayaa lagu sheegay khatarta ka dhalata walwalka muddada dheer qaata. khasaaraha uu keeno walbahaarka badan waxaa ka mid ah inuu daciifiyo raganimada. dadka qaarna markuu walwalka ka bato waxaa fuula hilib u horseeda cayil aan loo baahnayn.